بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن سلام دمان ولا الله سوماليات سيجار حسنا يا محسنين تا كحرن المستقيم فاونديشن ورنتي مرة بنجرب استعجال وحاليا أدي أداء ما سنتين أنت سكديب ما أنت وحن جوجنا سكول قانون المستقيم قاصة مقابة كورة هول كان أركيسان وكويا له هول كان وحن كوقفنا حفلتها sidoo kale maalinka arbacada waxa lagu qabtaa tartamada tartanka caruurta agoonta ah iyo kuwa danyarta iskuulka dhigto ay ku tartamaan waxbarashada waxaan rabnaa marka insha Allah taala maanta inaan hoolkan waa hool ka samaysan bacweyne sida arkaysan dahman waxa ilaa dhowr daaho macallimiintii anaga xaafadaha keena ayaan ku xirnay waxa u baahan marka qalabeen u baahan dhan walba ah hadii ah dahmankan in la soo dhameystiro sidoo kale safiito waa arkaysan meeshu waa meel aad u kuleel badan safiito kor lagu xiro marwaxado u baahan yahay marka si guud qalabeen u baahan yahay marka waxaan rabnaa maadaama mar waliba anaga u taaganahay inaan u shaqeeyno caruurta agoonta ah meel walba aan ka qabtirno hoolkaana waxa arrimo badan ku qabsano waxaan rabnaa marka inaan u soo bandhigno walaalaha Soomaalida muxsiniinta ah in ay hoolkan ay nala qalabeeyaan runtii marka aan sameynayno xafladaha kale kuraasto kale waxaan ka keensanaa qaab kira ah ama si kale oo xaafadaha ka soo qaadano marka kuraastaas dahmanka safiitooyin karo iyo qalabeynta guudba ayuu hoolkan u baahan yahay rabnaa insha Allah taala inaad garab istaagtiin marka waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaad soo garab istaagto dawladda Ilaahay yiraahdo anagu runtii lacagaha oo muxsiniinta ay bixiyaan waxaan ku daboolnaa guri kiradiisi iyo waxyaabaha kale korontadii biyo iyo macallimiintii oo kale marka arrimo intaas ka badan runtii waa dareemi kartiin inaanan maxaa ku dhahay gacanta inaan ku soo dhicin marka waxaan rabnaa arrimaha yar oo horumarinta hoolkan kale ka mid tahay inaad nala soo garab istaagtiin aad amaasantiin المستقيم فاونديشن waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda, buugaagtooda, qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood 180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisa damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo waliba agoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa